barnaamijka weydiimo waxaa taabageliyey dahabshiil group. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ميل كسود naga daawaneysaan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka weydiimo xiliyadana kala ayaad ka daawataan shaashada Astaan TV. barnaamijka waxaa ka qayb gala tartamayaal raba halkaan inay ku tijaabiyaan aqoontooda isla markaana ka qaadaan abaalmarinta barnaamijka oo sanadan ka qayb ka badan sanadii la soo dhaafay waxayna gaaraysaa $2,000 Mareykanka ah. saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka weydiimo. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد إبراهيم معداني وحكي مع دقمة وابري سؤالكي وحبرش داكها الله دكسيجي هو صدح وحكو سوقات سكولك محمد حرس نور سيدي دكسيجي صرنا حكا قصة بعد سكولك محمود حربي وحانا هاي أرضي كبح جامعة السلام كلية داوينتي قلينا سنة كيلوكم كوي لواتن runtii farxad weyn ay tahay maanta inaan ka soo muuqdo ama ka soo qayb gal barnaamijka weydiimo ee ka baxa TV-ga Astaan TV oo sanado badan aan daawanay ama sanadkii hore runtii farxad weyn ay tahay inaan barnaamijkaas ka soo qayb galo waxaan rajeynayaa in ku guuleysto insha Allah. waxaa ila fadhiya oo u helay fursadda Maxamed Ibrahim. Maxamed kusoo dhawo saaxiib barnaamijka weydiimo iyo Astaan TV. waa dhawahay barnaamijka runtii waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka sanadkan ka qayb galaya. barnaamijka hore mu daawan jirtay sanad hore la socday oo barnaamijka haweena badan daawanaya. haddii aad fursad heli lahayd masalada sanadii la soo dhaafay oo ku guuleysan lahayd abaalmarintan oo qaadi lahayd markii la fiiriyo taas dhihi karo inkastoo barnaamijka horta nasiib uu yahay laakiin sanadkan nasiib u yeeshay sanadkan rajaynaa insha Allah waa yahay qof walba oo banaanka ka jooga wuxuu haystaa inuu ku guuleysan karo laakiin halkuna imaado xaaladda jawiga uu ka bedelanyahay markaas sida la socotay barnaamijka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. qaybta ugu horeysa waa su'aalo 5 abaalmarinteeduna waa $200 qaybta labaad waa 5 su'aal abaalmarinteeduna waa $1,000 qaybta ugu dambeysa waa 5 su'aal abaalmarinteeduna waa $2,000 oo Mareykanka ah. inta uu barnaamijku socdo Maxamed waxaa leedahay 3 fursad oo ah fursadda wicista saaxiibkaaga ama ehelkaaga qofkii aad la balantay si uu ku caawiyo. waxaa kaloo haysataa fursadda soo koobidda su'aalaha iyo fursadda ka soo qaybgalayaasha martida halkan joogta ay kugu codeyn karaan. mar walba halkaas fursad ayaa leedahay haddii ay ka dhamaato mar dambe ma lihid hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan rajeynayaa marka inaad si fiican marka ay munaasib ku tahay inaad isticmaashid. haddii aan intan kula joogana ku xasuusin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah. intaas daa fahamtay Maxamed Ibrahim su'aalaha waa bilaabi karnaa. okay waa fahmin taas oo kula fahmin waa yahay su'aasha ugu horeysa shaashada ayaa ka arki doontaa waxay u qoran tahay sida tan. quraanka kariimka waxaa la soo dejiyay bisha A Ramadaan B Shawaal C Rajab D Shacbaan. quraanka kariimka waxaa la soo dejiyay bisha A Ramadaan B Shawaal C Rajab D Shacbaan. بسم الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سؤالشان كواد markaa ka jawaabo quraanka xilliga la soo dejiyay ama bisha la soo dejiyay bisha Ramadaan iyo Shawaal bisha Rajab iyo Shacbaan. waxaa dooranayaa su'aasha jawaabta number A oo ah bisha barakeysan ee Ramadaan. bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah xarafka A waayahay waa hubtaa soma buuganta ilaan kale markii la fiiriyo yani bishan waa bisha quraanka inta badan oo hadda ku jirno Ramadaanka bishaas marka taas leeyahay bisha oo quraanka la soo dejiyay Ramadaanka. waayahay fursadaaga mar walba xasuusnaaw in ay jawaab sax tahay aan eegno. mabali waa ugu horeysa waa fududeed suma Maxamed sidaan u fududan doonaan marka waxaan rajeynayaa in aad maanta ka qaadi doonto halkan abaalmarinta insha Allah. waayahay su'aasha labaad waxay u dhigan tahay sida caasimadda dalka Suuriya waa A Raqqa B Dimashq C Halab D Hims. caasimadda dalka Syria ama Suuriya waa A Raqqa B Dimashq C Halab D Hims. بسم الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
su-aashan labaad markaa u dhacayno ama caasimadda dalka suuriya waa a waa raqa, b dimashq, c xalab iyo ximis. intooda markaa fiiraysid suuriya iskala tirsan yihiin saa isleeyaha, laakiin raqa iyo xalab magaalooyin horta oo yani suuriya ah, laakiin caasimadda waxaa isleeyahay dimashq oo xarafka b ah ama ba, xarafka b oo dimashq ah. oo dimashq ah caasimadda dalka suuriya, xarafka b doorna waa dimashq. haddaa is leedahay shaki kugu jiro konton iyo telefoon iyo intaba kuu samayn karnaa. fursadahaas waa xilli kale u baahan doonaa, laakiin hadda waxaa isleeyahay waa ka maarmi kartaa. waa ka maarmi kartaa is leedahay. Okay. kalsooniya ku qabtaa su-aashaan. su-aashan 100% insha allah. waayahay b inay jawaab saxan tahay eegno marka. ambali laba su-aal ayaa ilaa hadda si fiican u baratay. tartanka isku fudud yahay umaleynaa marka fiiris. xoogaa si markii loo fiiriyo gadaal dambe duuska adkaan doonin hadeer. Hadda fudud yahay. fudud yahay maasha allah. sidaas inuu noqon doonaan rajeynaa insha allah. insha allah. su-aasha xigta ee saddexaad waxay leedahay sida tan. wuxuu dalka Jabuuti xornimada qaatay sanadkii A 1977, B 1975, C 1965, C D 1960. wuxuu dalka Jabuuti xornimada qaatay sanadkii A 1977, B 1975, C 1965, D 1960. wuxuu dalka Jabuuti xornimada uu qaatay sanadkii 1977 65 markaa fiiriyo afartan jawaabood horta 1960 meesha ay iga baxaysaa, sababtoo ah inkastoo Jabuuti oo dal walaalehen uu yahay, markii la fiiriyo 1960 xilliga anaga xornimada aan qaadano waa waxaa isleeyahay horta kuma jiri doonto D 65 waxaa isleeyahay iyadana maya, laakiin labada kale oo ah A iyo B markaa u imaado 77kii oo kale oo xilligii annaga dagaalka ku jirnay oo dagaalkii 77 75tii oo u dhaweyd leh iyadana, marka waxaa isleeyahay 1977 xilliga annaga dagaalkii aan ku jirnay 77kii xilligaas Jabuuti inay xornimadeeda ay qaadatay iyadana oo xarafka A ah. ee filaysa arjina insha allah ya moobta afarta xaraf marka yani afartooda markii la fiiriyo A B iyo D horta ay bixi doonaan. waxa ku shakina waxa waa A iyo maxaa la yiraahdaa B oo ah 77 iyo 75 marka xarafka A ku adkeysanayo oo ah 1977 xilligaas anaga Soomaaliya dagaal ku jirnay, iyadana markaas Jabuuti xornimada markaas ay ka qaadatay Faransiiska. waayahay marba haddii uu shaki kugu jiro konton jirta inaan qof wacdida jirta iyo inaan lagugu codeeyo shaki yaqiin laga baxaya dhahan maya, macnaha waxa ku qaldi kara marka qaarkood sanadada isku dhow 77 75 isku dhow yihiin, yani waxa u dhaxeeya waa hal sano ama 2 sanadood waa. marka aniga waxa ku adkeysanahay xarafka A oo ah 1977 xarafka A 1977. jawaabtaas waa mid kugu dambeysa last ay tahay. waayahay inay jawaab saxan tahay anagana marka fursadaas kuma khasaarin waxaa jirtaa weli, laakiin marba haddaa shakinaysid waad is leedahay ama ay labadaa midkood tahay konton ka dhigan kartaa. laakiin fursadaas haddaa iska khasaarisid mar kaleeto ama ay ka dhib badan tahay ayaa laga yaabaa inay ogaatid. waxaad fursadaha dib ugu dhigana waxaa is leeyahay hadhow dambe u baahan doonta hadda. su-aasha afraad waxay u dhigan tahay sida tan. sportska ma jeceshaha ma xiisisaa? waxayse inta badan sportska waana daawataa. kooxda taageertaa? Barcelona iyo Arsenal. Barcelona cagsigeeda waa su-aashan jo waa arkaa inkastoo sportska ku jirno, laakiin waa waaya su-aasha waxay qoran tahay sidaas. 3 jeer oo isku xigta ayay Real Madrid ku guuleysatay championka waxaa tababaro u ahaa A Jose Mourinho,
B Carlo Ancelotti C Zinedine Zidane D Santiago Solari. saddex jeer oo isku xigta ayay Real Madrid ku guuleysatay championka waxaana tababaro u ahaa A Jose Mourinho, B Carlo Ancelotti, C Zidane, D Santiago Solari. saddex jeer isku xigta Real Madrid waxay ku guuleysatay Champions League waxaana tababaro u ahaa afartan midkood oo ah A Jose Mourinho, B Carlo Ancelotti, C Zinedine Zidane iyo Santiago Solari. afartood markii aan isdhaho horta xarafka dhii horta meesha iga bixi doonaa oo ah Santiago Solari. Jose Mourinho isna ka bixi doonaa sababtoo ah xilligii oo Real Madrid ay qaadaysa koobkan waxaa umaleynaya inuu joogay Chelsea inay ahayd umaleynaya iyo Manchester United ma aqaan. Carlo Ancelotti iyo Zinedine Zidane laga yaabaa inuu ku shakiyo laakiin waxaa isleeyahay saddexda mar isku xigta Real Madrid ay qaadaysay Champions League waxaa tababare ama macallin u ahaa Zinedine Zidane oo ah xarafka يعني حرف كسي xarafka C. ها يعني markii xitaa Kuwa Frankana badan ku sameeyay C iyo D oo kale Carlo Ancelotti Zinedine Zidane oo kale Ancelotti sanad hore ima saarajeen inkastoo Real Madrid aan taageerin Real Madrid xilliyada ay qaadaysa saddexda mar ka horeysay marka isleeyahay xarafka C oo ah Zinedine Zidane. Maxamed da isleedahay oo aad hubin mar walba waxaa haystaa fursadaha ilmaami maya $500 saaran waxay ku gudbin doontaa ammaanka ugu horeeya waa 200 oo ayna jeeb ku qoro ay ku qorataa $200 aad muhiim kugu tahay وهو Zinedine Zidane وهبتا وياها مدام وهو بعرق أذك وياهي سي جواب سحن إن تاني أقول بلي السؤال يا سيدي عنو بركة كل وحيكون مقطعين هبتي إنكستو حرف بدن عشان شكت لكن يعني أصلا يا مسكح ذا سينس معناها مركز أصلا هاي يعني وحقيقة إنه أكل صارته سيادوت كسنين ونقنا هذا في عنتها واستراتيجية في عن هرجينا إن يصير أسكو أهاتو سؤال عشان ذاك جوابتي توصعته $400 أيه هي اللي دونتا جاكم كسين دونا وغادا كرتاه إن شاء الله بحاول يبنتها سياسة دولتي أمويينتا وحي حكم كهيسي A 19 سنة B 19 iyo 2 sano C 94 sano D 93 sano dawladii Umayyadeenta waxay xukun ka haysay A 90 sano B 92 sano C 94 sano D 93 sano dawladda Umayyadeenta waxay xukun ka haysay 90 sano 92 94 sano iyo 93 sano كافيرست جوابها ما كافيرست واسكو يعني سنة استسارن هل سنة لا كم قال لكن واسكو حاجة سيصدح كم خن ولدي أمويين تحي حكم كهيسي سياشن تاريخ اسمه هذا نقطة تاريخ اسكو في يعني إن كستو حوا أمويين تي يومرك خاركود وبعنانيس يعني حوا تاريخ وبعند آخر سبان دولة الأموية دولة العباسية لما حكومة دي خلافات إسلامية سمر هي دولة أمويين تا سياشن سنة سياشن الله سياشن أفر سياشن سدح سياشن كودا كم قنعون سياشن معجب بوينتس كواد أما أمان كواد هذا هو جلستي $400 جاكا كوكوري دونا جاكا وهايا أوكي مقعقا كوكوري هاي إنا كو صحيحو يلعكتها كارما أوكي هذا بفكر سياشن الله سدح فرصة ما يستعرض سارجينا سدح فرصة هستا إنا كو سوكوبنو إنا مفوعتد إنا كو عدين مادام فرصة كلا هل الدوانو حرجينا إن لي عدين استعماله عدينت شكي كجر حوا شكي بدن يجر مادام سنديada سارين هين حوا شكي بدن يجلنيس marka ajaalan laha in codeynta la igeliyo codeynta lagu geliyo ajaalan way hadaawadayaal sida saaxiibkiin u jeedin su'aasha la weydiiyay halkan ay ka soo bixi doontaa marka aragtiin waa codeyn kartiin waxaana haysatiin 30 ilbiriqsi ina ugu codeysiin
marka aan su-aasha dhammeeyo ayaa codeynta bilaabi kartiin xarfaha hortiina yaala midkii u aragtiin ayaad leedihiin insha allah. dowladdii umawiyiinta waxay xukunka haysay a 90 sano, b 92 sano, c 94 sano, d 93 sano. waxaan maleynayaa dhammaantiin inaad shaashada uga wada jeedi kartaan oo codeyn kartaan. codeyntana waa bilaabi kartiin. 30 second ayaa hadda idiin bilaabatay. natiijada oo bilaabatay weli ma dhammaan. 5 second ayaa dhiman. okay waa dhamaatay. codeyntiinana waa noo xiran tahay. natiijada halkan ayay ka muuqataa. maxamed, dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin inay e tahay 90 sano. qaar ayaa ayagana aaminsan inay 20 iyo 5% waxay aaminsan yihiin inay tahay xarafka b. dhowr qof c ee tiri midaan waa ka saareen d-ga. hal qof ama dhowr qof ayadana tiri. soo su-aashan qof kasta wuxuu ka jawaabay ku raacaysaa. horta ayaga ka shakisnaa inta badanna maadaama asxaabteyda u bateen iyo dadka barnaamijkan ayala qayb galaya waa ku raacaya xarafka xarafka e xarafka maxamed kuma qasbin inaad ku raacdo ogaab. meesha 4 sano markaa fiiriyay xitaa laftirkeygii horta ila ekeed inkastoo xoogaa isleeyahay ama laakiin go-aanka ugu dambeeya ku qaatay waxay tahay 90 sano 90 sano oo jeegga waa haystaa. $200 ku qoraa haddii ay su-aashan jawaabteeda ay sax noqoto. haddii ay noqon weyso waa soo dadaashay 5 su-aal ayaad keentay. barnaamijka waa ka hari doontaa. aada uga fakar mar kale ma qoraa. waa ku raacaya waa yahay inay jawaab saxan tahay oo ay saaxiibada ku caawiyaan in kale aan eegno. balyo wanaagsantihiin sida wanaagsan aad saaxiibkiin u garab qabteen. guulaystay $200. waxaan siin doonaa jeega ay ku qoran tahay 200. maxaa ibrahim labadan boqol ayaa markaa ugu horeysa heli kartaa. barnaamijkana ka qaadatay. meeshaan eberka lama tegi doonto hadduu ilaah yiraahdo. hadda nidaada see tahay? waa marka hore niyadeeda fiicneed haddana waa si fiican. waa si fiicnaan doontaa. jeeggaas waxaan kaa bedeli karaa marka aan $1 kaaga dhigayo hadduu ilaah yiraahdo. jeegga iyo barnaamijka waxaa taabageliyey dahabshiil. waayahay weliba yarta lacagtan kulama qaybsan karaan. waayahay su-aasha xigta iyo qaybta labaad ayaan geli doonaa. su-aashana waxay u dhigan tahay sida tan. waxaa aasaasay fikirka shuuciyadda a Friedrich Angeles, b Vladimir Lenin, c Joseph Stalin, c Karl Marx. waxaa aasaasay fikirka shuuciyadda a Friedrich Angeles, b Vladimir Lenin, c Joseph Stalin, d Karl Marx. waxaa aasaasay fikradda shuuciyadda Friedrich Angeles, Vladimir Lenin, Joseph Stalin iyo Karl Marx. su-aalaha sidii hore waa kasii adkaadeen saas leeyahay. soo adkaadeen. dad badan ay na daawanayo weli waa la fududaa. waxay u arkaan markii abna aad joogto kaleeto sidaas oo kale aaminsanayeen aaminsan yihiin. ma waa suurtagal laftirkeeda. yani qofna si wuxuu u arkaa qofna meel kale wax ka arkaa. waa huba qof dhahayo su-aashaan aad u fududahay na jir na daawanayo. waxaan leeyahay fikirka shuuciyadda ama fikradda shuuciyadda waxaa aasaasay Friedrich Angeles, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Karl Marx. afartooda Angeles, Lenin, Stalin. fursadda labaadna isticmaala ka doorbidaya. mar walba waa isticmaal kartaa fursaddaada. 50% maadaama yani dad qaar waxaa arkaa tusaale Stalin oo kale meelo kale ku arkaa laakiin shuuciyadda iyo
waxaas inoo shaqo ku leeyahay uma malaynaya Mhm. Frederick Angeles, Vladimir Lenin, Karl Marx. fursadda labada inaan isticmaalaya rajeynaa boqolkiiba midaa uga shaksantaa ma jirtaa intaa fursadaas aada go-aansan shaki aa ka qabta xarafka dhiyaas leeyahay fikrad ahaan yani xarafka D aan waxa uu shakisanaad Karl Marx oo kale inuu Karl Marx aaminsan tahay waaya fursaddan waxaa laga yaabaa laba ayaan kaa tuuridaynaa hadduu ilaah yiraa labadaas ma xaqiiji kara labaday noqon doonaan kuwa ka shaksaneed mid kaloo ka shaksantaa ma jirtaa Karl Marx iyo Joseph Stalin. Okay. labadaas soo hartay asleeyahay dama qolkii konton ay noqotay Joseph Stalin labada qofka ka shakisnaa wili oo taagan yahay yani ha marka ya waa ka xumaa in laba ayuu computerka gooyay labadaas haddana labadana soo hartay okay telefoon waa kartaa mamay hashaan fursadooda fiirin doonaa hadduu ilaah karaal noqdo fikirka shuuciyadda waxaa isleeyahay xarafka D oo ah Karl Marx maadaama marka hore shakigan uu igu jiray hadda laakiin waxaan aaminsanahay Karl Marx inuu yahay Karl Marx yes jawaabtaada jawaab nihaya mata ugu dambeyso last decision keega xarafka E Karl Marx waayahay jawaabtaas final waaye 300 ayay ku gudbin doontaa inaad ka laabanayso ma laga yaabaa maya marka horeba shakiga uu iga jira laakiin hadda labada markii la tuuray Joseph Stalin shaqo kuma laha Karl Marx doorna xarafka D waayahay jawaabtaas inay sax tahay in kaleeto waxaa ogaan doontiin marka aynu break yar galno kadib insha Allah Make someone smile today. This Ramadan, all transfers are fee-free. You can send money from anywhere, anytime, as many times as you want and pay no fees. Use the promo code Ramadan22 on the Dahabshil app or website. And join our movement. #Project Smile. dahabshiil bank international mastercard waa ammaan waana la heli karaa waxaad ku isticmaali kartaa dunida oo idin ku bixi biilasha ku dukaamayso oo online-ka wax uga iibso waxaan ATM-yadii ugu badnaa kuugu diyaarinay dhammaan goobaha muhiimka ah ee magaalooyinka ku hel debit iyo credit wagaag saaxiibayaal daawadayaal isku soo noqod wanaagsan sida aad wada daawaneyseenba maxamed waxaynu weydiinay fikirka shuuciyadda cidda aasaastay waxaana u soo hartay fursadda soo koobidda jawaabaha waxa uu doortay Karl Marx jawaabtaas inay mid sax tahay aan eegno ambali maxamed dahin waxaan isleeyahay caawa fursadaada aad ay u fiican tahay inaad kunka gaari doontaa laga yaabaa waa insha Allah saa ku hamweynaa waa i ka badan insha Allah doori karaan noqda su-aashan waxay kaa qaadatay fursad kale hal fursad ayaa hartay waaya hal fursad ayaa ku hartay nasiibkaaga labadii fursadoodba si fiican uga faa'iidaysatay dadweynaha iyo inaad soo koobatid su-aasha xigta waxay leedahay sida taxanaha La Casa de Babel imise season ayuu ka kooban yahay A 6 season B 5 season C 4 season D 8 season taxanaha La Casa de Babel imise season ayuu ka kooban yahay A 6 season B 5 season C 4 season D 8 season fiilkam daawad season ka tirsan waa daawad inkastoo seasonadiisa dhan aan wada fiirsan ya season ma wada daawan ma wada laakiin wada daawad
laakiin qayb kamid ah xilliga koronaha aad aan loo daawaday Ha. filmaanta ma daawad jirto waagi hore inta badan aan akhriska waqti badan ay geliyaa filmaanta inta badan hindida aad u daawadan yani kastoo maraykanka iyo filimkan xitaa laftirkiisa The Purple Spanish inuu yahay rajeynaa laftirkiisa La Casa de Papel يعني حواي لح season hadana su'aalo isku dhow yihiin telefoonkaaga ku haray fursadda filimka ku fiican jiro waa fursadaas xilli dambe isticmaali doona hadii la karaan noqo laakiin hadda waxaan insanahay 5 season inuu ka kooban yahay 5 season ha oo ah xarafka B xarafka B fursadaas mawta La Casa de Papel وهو 5 يعني 5 season aniga xataa waa fiirsada ma aqaan seasonskiis marka leeyahay ma wada daawan yani hadii oo dhamaan wada daawan lahaa waa wada cadeyn lahaa laakiin hadda waxa leeyahay waxa waaye xarafka B oo ah 5 season kooban ha joobta ugu dambeysay waa ha kamalaabay ugu dambeysay oo waxa waaye fursada ugu laabata haysta hadda maya jawaabta ugu dambeysay waa oo aan nasiibsanahay haddii ay sax noqon weyso jeegaaga haysta waa tegi kartaa markasteeto dhibaato ma laha jawaabta B in ay mid saxan tahay aan eegno waxaa u socotaa ku dhawaanaysaa bandarka labaad ee barnaamijka weydiimo oo ah $1,000 waxaan ku rajeynayaa inaad gaartid halkaas su-aalahana ay sida hadda ay kugu fudud yihiin ay kugu fududaadaan weliba fududiisa ma su-aalaha waa fududii weli xoogaa inkasta oo yani xoogaa ay jirto weli masaamiir yar iska jirto waxa waaye waxay soo xasuusinayaan su-aalaha markaa fiirisid macana hadda kahor taariikh noo dhigi jira xilliga iskuulka waxaa jirtay yani imtixaankiisa waxaa dhahan taariikhay ahayd weliba ustaad imtixaanka horan markaas waxaa jirta xigmad oo noo dhiibo oo noogu dhahay alimtixaan xalwa ولكن فيه مسامير اوكي marka imtixaanka hadda yani kan waxa isleeyahay xalwa laakiin xogaa مسامير waa jira مسامير jira sama xigmad fiican ka bartaan naftigayga waxaan rajeynayaa inuu مساميرta ay naga yaraadaan haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah oo meel aan ku socon karnaa ay noqoto su'aasha xigta waxay tahay sida tan banooniga yar ee caruurta ku ciyaaraan ee ka samaysan iskaashada ama shaarabada waa sharabaadada ergasan sax banooniga yar ee caruurta ku ciyaaraan ee ka samaysan iskaashada ama sharabaadada waa A xufle B bugle C dugle D jugle banooniga yar ee caruurta ku ciyaaraan ee ka samaysan iskaashada ama sharabaadada dadka si u kala yaqaanaan waxaa la yiraahdaa A xufle B bugle C dugle D jugle wax badan banooniga soo ciyaare dadka qaar waxaa laga yaabaa markii xoogaa aad fiirisid eryada dambe in oo isdhahayd ama kan uu yahay laakiin markaa fiirisid xufle iyo bugle iyo dugle iyo jugle maadaama banooniga wax badan aad soo sameeyay laftirkii oo soo ciyaaray laftirka banooniga dhashay markaas laacibata ya laacibata hadda banooniga ka soo bilowday kan oo ka soo bilaw soo ciyaari jiray soo waliba oo buucisa dhigi jirna anaga wax la sameeyay marka tan shaki igama jiro waxa waa xarafka ba ama b bugla laha yani bugle B shaki kaga jirto ma shaki ma iga jiro tan waqta ha xalwadi waa yani saas leeyahay bugle xarafka ba waayahay B jawaab saxan inay tahay eegna way صح bugle fiican aan tahay sheegtay laakiin hadda waxay ka caawisay inaad $600 aad heshid إحنا مقصي أو حقيقي سوى أنا كون كدول جارت أمانك إنا جارت مش أنا مسامير تاكو بدن مركب من الأمانة وكدولار وجندو إنه هدو إلى هيراد إن شاء الله سؤال شعكت وقرنتها هاي سيدة waxaa ku guuleystay koobkii adduunka 1900 iyo 9kii dalka ee Argentine
B Holland C Brazil D Germany waxaa ku guuleystay koobkii adduunka 1990kii dalka A Argentine B Holland C Brazil D Germany ciyaaraha waa daawadaa tiri su-aalaha ciyaarana waa soo lalaabtay nasiibkaaga aad u fiican yahay dadka qaar su-aalo chemistry biology iyo physics kusoo bato random si ah okay waxaa ku guuleystay koobka adduunka 1990kii dalka Argentina dalka Brazil Holland iyo Germany Argentina inkastoo xilligan xilli dhishaan ahayn laakiin markii oo sportska aan raacno waxaa isleeyahay xilliga xilliyadii oo Bailey iyo xilligii oo waxaa isleeyahay Maradona ay ka casnaayeen iyo yani ninkii ahaa Muller inta waxay iga bixi doonta horta waxaa waaye xarafka E sababtoo ah Holland 3 mar finaalka imaaday hal marna maysan ku guuleysanba Holland horta inta iga bixi doonta waxaa ku shakin karaa waxaa waaye Brazil ma qaaday Argentina ma qaaday iyo Germany Brazil ay iga bixi doonta sababtoo waxaa waaye 2002 ay qaaday 4 sano marka Argentina iyo Germany labadaas laga yaabaa in oo ay imaanto xarafka D doorna oo ah Germany fashion kuwa bantaan meesha xogaa shakiya kaga jiro gudumada maya yani markii aad fiiriya hadda afarta xul yani markii Falanqeyn uu ku sameeyay sidii oo finaalka xilligan Holland ma baqaadan buu 3 mar oo finaal ay imaaday Brazil 2 sano isku xigta ma qaadan yani 90kii kadib 94 xulal kala qaaday 2002 qaaday marka xarafka D Argentina waxa laga yaabaa bis in ay gasho Germany laakiin Germany doorna oo ah xarafka D qof aan ka tamka hadii labadaas ay ka jirto Janiskaas dib u dhigan doona 800 ayaa horta taala Janiskaas su-aasha ku xigta dadka jawaabtid $1 siin doona hadii la yiraahdo ma xarafka D ku adkeysana D ku adkeysana ha jawaabtaad ugu dambayso 800 kuna ku xigta إن شاء الله ما رجينا ندول كران نقضي دي حركة قوات كيسنا إن شاء الله قوات كيسنا سا وياها جوابت الجواب سحنا نتاعنا أمبلي هاي باي لا شيء تعتبر كده شيء طبعا غير هذا $1 واي بدو إلهي راد لا تبغى فكر أنا نجاكي كان سوري ويستنايا فرصة هل فرصة نوايا ستا وقوهرتي سفي عنه استعمال شيء هو كاجي حبذا هاجي iskama khasaarin waxaan rajeynayaa su-aashaan inaad ku guulaysatid insha Allah su-aasha waxay dhigan tahay sideetan waxaa la bilaabay isticmaalka lacagta yuurada sanadkii ee 1999kii B 2005 C 2002 D 1995 waxaa la bilaabay isticmaalka lacagta yuurada sanadkii ee 1999kii B 2005 C 2002 D 1995 maxaan brain jeegiga la soo baxaya waxaan isleeyahay su-aashan inaad ka jawaabi doontid insha Allah ma warajeyna laftirkeyga waxaa la bilaabay isticmaalka lacagta yuurada sanadkii 1999kii 2002 2005 1999 sagaal 2002 2005 شك ما كان يجري شك يجري محمد إبراهيم وقعد في دحين محمد إبراهيم عداني واه عداني محمد شك كروينا كوغر كنت الله قراء شاش ذاك جوابت شك ما قاعد كرتا هذا لك جواب وسوء يسألني سما وين هنا جواب ترى بقى جكس شاش فرصة هذاك عندك بس
midaa isteynaysaa ama jawaabta ama jag jeeg soo kaga soo baxin noqda rajeyna horta hadii ilaahay karaal noqdo haye waxaa la bilaabay lacagta yuurada 99kii 2005tii 2002 mad jag waa saxayn soo ma yes kun doolar ku qor aha haye ma fudud su-aashaan اللهم su-aashaan lacagta تحب وترضى 99kii 2005 2002 siibkeyga sanadka fikiraysid qof aa wacan kartaa soddon ilbiriqsi qof ugu jawaabi kara ma jirtaa qof aliga waca qofka ku wacina wicitaanka isticmaalina optionka yaa qofka ku wacina ciise cabdullaahi cabdi ciise cabdullaahi aha ciise cabdullaahi mistaqani saaxiibka waa saaxiibana waa saaxiibatiin ha isku jaamacadda isku iskool jaamacadaas la soo dhiganayna aasha markaan la ku siiyey waxaa waaye soo jees xogaa waxaan isleeyahay markaan ku siiyey xogaa waxaa dareemay culayskiisa dareemaya culeyskiisa dareema kursiga waye ciise wacina ciise soddon ilbiriqsi haystaa marka halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله. ciise maxamed ibraahim ay la joogo waa astaan t v barnaamijka weydiimo ما شاء الله صدقوا. ciise waxaa rabaa inaan maxamed ibraahim kuu dhiibo su-aal ayuu ku weydiin doonaa soddon ilbiriqsi su-aasha jawaabteeda inaad ku siisaan rajeynayaa haddii kale uu kaa goy doonaa إن شاء الله. waxay bilaabanayaan marka kula hadlo ciise su-aasha waxay u dhici doontaa sida tan waxaa la bilaabay isticmaalka lacagta yuurada sanadkii 1999kii 2005tii 2002 1995 lacagta yuurada waxaa la isticmaalay sanadkii 1999 2005 2002 1995 waqtigan uu nagu sii yaryahay ولوضكم إيو شنطي. okay 2005 2005 soo yiri saaxiibkaa ha ma aaminsan tahay waa ka gaartay horta muddi ya arrinta ugu fiican waxaa waaye inaad ka gaartay oo 2005 ah aad maqasho jawaab waa maqlay jawaabta ku raacay mise shakaa kaaga jiro maya waa ku raacaa xarafka ba ama b 2005 ah su-aasha hadaa ka jawaabtid muhiim ay ku tahay jeega ama jeeggaa ii soo celine ama ama jawaabtii qaadan mare ama jawaabta iskeenay marka 2005 xarafka b ku adkaysanaa saaxiibka xarafka B. b yes jawaabtaada kugu dambeyso my last decision maxay biraan fursada ku laabtaa haystaa baashaan walow lagu gelinaysaa weli fursadaadaas kale saa u dhaqdhaqaaqaysa maanta dhan tartiib oo fadhisay hadda laakiin waxaa bila meesha fadhiga kaa kicinaysa marka qaarkood marka doolarka la gaari waa dareemaya inaad kursiga kula ekaa waayo hay I believe mar kastoo bedeli karnaa su-aasha jawaabteeda may jaaniskii ahaa in oo laba laga tuuro hore usoo qaata marka yani 2005 labada ku shakil lahaa labadaasay ahayn 2002 laakiin xarafka biyaha ku adkaysanaa xarafka biya ku adkaysanee jawaabta inay sax tahay iyo in kale aan eegno okay akama sheega way siin kartaa aad iyo aad aan waxu mahay saaxiibkay maxamed ibraahim sheega inaan ku sii rabay jawaabta saxda waa e oo ah 1999 saaxiibada inta joogana waa ogyihiin maxamed ibraahim aad aan noola soo daashay meeshaan waxaa ka qaaday $200 aad ayaan u mahadsan tahay
waagaag daawadayaal sida aad wada socoteenna tartamaheenii kale uma suurtagelin inuu nala sii joogo sida daraateed barnaamijkeena caawa intaas aynu ku gabagabayn doonaa barnaamij midkan la mid ah intaynu ku kulmi doono oo bahda astaan oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim